ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaa la qorsheynayaa in caawa uu kulan la yeesho siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo xildhibaanada ku heybta ah. waxaa lagu bogaadin doonaa doorkiisa ku aadan inuu hor istaagay damacii madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ka dhigay ee farmaajo ee uu ku doonayay inuu ku meel mariyo muddo kororsiga 2 sano ah. xildhibaanada mucaaradka ah oo shirkan ka qaybgalaya ayaa abaabul ka leh, waxa uuna sida qorshaha uu yahay uu ku qabsoomayaa hotel ku dhow agagaarka garoonka Muqdisho. waxay u muuqataa inay kala fogaanayaan madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Rooble tan iyo bishaanba, maadaama Rooble uu maqlay talana ka qaatay siyaasiyiinta tolkiisa ah iyo odayaasha dhaqanka oo 3 cisho ee ugu dambeysay kulamo qarsoodi ah la qaadanayay, uguna baaqayay inuu fadhiga ka kaco oo uusan ku qancin siyaasadda wax isku meerinta ah. khilaafka hordhaca ah ayay dadka wax falanqeeya sheegayaan in laga dhexdhansan karay khudbaddii xalay ee madaxweynaha oo hal meelna uusan uga soo hadal qaadin farmaajo doorka Rooble, taasi beddelkeedna uu mahadcelin kala duldhacay golaha shacabka iyo dowlad goboleedyada labada ah oo uu ku amaanay go'aanka ay qaateen. marka laga soo tago go'aanka Hirshabeelle iyo Galmudug, Rooble waxa uu lahaa kaalinta ugu weyn sidii dib loogu noqon lahaa heshiiskii 17 September iyo joojinta dagaalada Muqdisho. maalinta Sabtida oo taariikhdu ku astaysan tahay 1 bisha May, waxaa lagu balansan yahay in golaha shacabku hortago madaxweynaha kana codsado inay dib uga noqdaan muddo kororsiga ay u sameeyeen. laakiin marka intaas la wada og yahay laga soo tago, waxaa soo baxaya inay jirto qorshe kale oo ka dhan ah ra'iisul wasaare Rooble. siyaasiyiinta iyo xildhibaanada garabka mucaaradka ah ayaa aad u hadal haya in kulankaasi lagu dhex qarinayo qorshe xilka lagaga qaadayo ra'iisul wasaare Rooble si lamida sidii Xasan Cali Khayre. haddii ay taasi dhacdo, waxay siyaasadda Soomaaliya yeelan doontaa waji kale, waana arrin wiiqi doonta dadaalada loogu jiro in la hirgeliyo nidaam badbaado u noqon kara qaranka iyo dadka Soomaaliyeed. wararka hordhaca ah waxay sheegayaan in Maxamed Mursal uu soo jeediyay fikradda ah in xilka laga qaado Maxamed Xuseen, xildhibaanada nabad iyo nololna ay diyaar u yihiin hirgelinta arrintaas. haddaba yaa lagu bedelayaa Rooble? ila wareedyada ku dahaaran arrintan waxay u arkaan in farmaajo xulanayo ra'iisul wasaare uu u arki karo in Muqdisho saameyn uu ku leeyahay. waxayna hadalhayntu u badan tahay ra'iisul wasaarihii dowladdii ku meel gaarka ahayd Mastar Cali Maxamed Geedi oo beryahan dambe isbahaysi xoogan la ahaa madaxweyne farmaajo. waxaa la aaminsan yahay in tallaabada kalsooni kala noqoshada Rooble ay tahay qar iska tuur siyaasadeed oo sababi kara in Rooble uu diido xilka qaadista kuna biiro garabyada dowladda mucaaradka ku ah. beesha caalamka qudheedu ma ahan mid ay ku qanci karaan xilligan in Rooble xilka laga qaado, maadaama dalku marayo marxalad kala guur ah. marka laga hadlayo Cali Maxamed Geedi xaggiisa, waxaa lagu xasuustaa inuu ahaa mas'uulkii horkacayay dagaalo lagu laayay dad Soomaaliyeed oo ay geysteen ciidanka Itoobiya sanadkii 2007. lamana oga sida uu wax uga bedeli karo siyaasadda cakiran, maadaama 12 sano uu ka maqnaa masraxa siyaasadda dalka. haddaba haddii Rooble xilka laga qaado laguna bedelo Cali Maxamed Geedi, ma yahay Mastar Geedi mid furfuri kara siyaasaddan isku xiran, saameyna ku yeelan kara siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ku beesha ah? qaybta hoose ee aragtida inoogu reeb aragtidaada.